dameeraha waa gaadiid muhiim u ah nolosha bulshada Soomaaliyeed waa la rartaa waana la dhaansadaa laakiin lama daryeelo waxaana loo geystaa jirdil iyo in la siiyo kaniiniyo awood kordhiya mana jiraan xeerar iyo sharciyo ku aadan xuquuqda xayawaankaas marka laga reebo xeerar hoose oo bulshada u samaysatay oo la xiriira xoolaha la dhaqdo magaalada Kismaayo waxaan idinkaga haynaa warbixin gaar ah oo ku saabsan dameeraha iyo tacadiyada loo geysto Saxnuun Axmed ayaana warbixintan eegaya Cabdullaahi waa biyoolo ku shaqaysta dameerkan saaka wuxuu isku diyaarinayaa inuu shaqeeyo saacado badan si uusan u daalinna wuxuu kaniin siinayaa dameerkiisa markuu shaqayn rabto inuu wax kalaam budal ku rido way haddii ku ridin dameerka ku mas'oona isdili kartina ma ogeey mana ku shaqaynayo subaxa hore intuu uusan shaqada aadin wuxuu dameerka siiyaa xanuun baabi'iyo xoogan oo loo yaqaan tramadol isagoo ugu dara ganleyda sababta uu u siiyo waa inuu waqti badan ku shaqaysto culays badan qaado wadooyinka bacaadka ahna si dib yar ku maro wuxuu noo sheegay in wax soo saarku laba jibaarmo marka uu dameerka siiyo tramadol marka hore inta aan siin jirin loo biyaadka ma badin jirinbo subax bas qaada oo caajisan duhrin hadana oo maqribi hadana hal bal saara bis oo saar ku soo marka oo tramadol soo angal alxamdulillah afar biyaad ku qaata si hore hadda ii dhaanta marka tramadol soo marka angal halkan waa suuqa dameeraha ee magaalada Kismaayo subax kasta waxaa loo iib keenaa ku dhawaad 30 dameer intooda badan waxaa laga keenaa miyiga magaalada Kismaayo oo naloo sheegay in isticmaalka tramadol ku gaaray Saciid Ibrahim waa dulaalka la gada dameeraha muddo dheer ayuu ku jiray shaqadan way u dhib yar tahay inuu aqoonsado dameeraha la siiyo tramadol biyoolayaashuna waxay door bidaan dameeraha la qabsaday kaniinka haddii dameerkii oo wax kaniin la siiyo waa la garanaa maba istaagayba ad qaf tramadol cunum arkimaya maba istaagayba inta dameeraha inta ku dhabaha ma dhex istaaga wana maskax laga galay dameeraha waxa u badan kuwan biyaha dhaameen kuwan biyaha bur abluka ka soo qaada kuwaas u badan biyaha dameeraha kaniin la siiyo dadka shacabka ah ee biyaha u geeyaan inta badan ma oga in dameeraha la siiyo tramadol gabadhan waxay macmiil u ahayd biyoolahan muddo sanad ah waa qalad inay masaakiinta hadana inay waxyaalo inta daraas ku soo diraan ee hadana ay ku shaqeysanayaan marka waxaan kula talin lahaa dadkaas inay waxaas dameerka dhaafaan oo masaakiinta ah Cabdullaahi waa aabaxaas iyo 8 caruur qoodiya wuxuu ku dadaalayaa sidii uu nolol ugu heli lahaa qoyskiisa laakiin waxa noo muuqata inuusan ahmiyad siinayn caafimaadka dameerka intii aan duubaynay shaqada Cabdullaahi waxaan arkaynay in mararka qaar dameerku ilmeynayo jirka ma haya sunta daawada haysan socod traa marka sunta yeelay ilinta daadinay dhaqaatiirtu waxay noo sheegeen in xanuun baabi'iyahan aan loogu talagelin dameeraha dhaawac culusna u geysto xubnaha jirkooda muddo kadibna ay ku adkaato inuu shaqeeyo waxaa la keenaa cases fara badan oo ay ka mid tahay kanin dameero la siiyey tramadol la siiyey oo dameerkii intii wax tiro badan la siiyey carabka taa uu soo dhacay ajraan oo ay noqotay inaan muddo la tacaalno dadkii ilaa hadda waxna wax dawlad controleyso ma laha quality control engineer sababta waxa waaye qofkan wuxuu dameerkiisa siinay cid og ma lahan awoodii dawladeed ee Soomaaliya oo god gashay qawaaniinta iibka dawooyinka oo mugdi ku jira iyo bulshada oo aan ku baraarugsanayn daryeelka xayawaanka ayaa sababay xadgudubyada noocan ah si aysan u sii soconna waxaa loo baahan yahay dadaalo wax ku ool ah oo lagu fogeynayo ku xadgudubka xoolaha Saxnuun Axmed BBC